ma isku aragtay in marmarka qaar uu isbedelo maqaarka jirkaaga iyo wejigaagaba uu noqdo maqaarkaas madow iyo casaan oo ka duwan maqaarka jirka kale? Muuqaalkan ayaa kugu sharxaya waxyaabaha sababo inuu maqaarkaaga noqdo madow ama casaan iyo sida dabiiciga ah ee aad isaga daweyn kartid. Isoo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Si aad ku soo aragtay muuqaalka hordhiciisaba, muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo haaraha ama isbedelada ku yimaado maqaarka. Marka waxaan ku sharxayaa muuqaalkan waxyaabaha sababa haaraha, sida dabiiciga la isaga daweyn karo, qaabkaad ugu hortagi kartid, iyo sidoo kale talooyin muhiim ah oo anfacaya qof walba oo leh haaraha. Marka hore, waa maxay haaruhu? Haaruhu waa goobaabin ka midab duwan maqaarka qaybihiisa kale, waxaana inta badan lagu arkaa ama inta badan ay kasoo baxdaa jirka qaybihiisa kala duwan sida gacmaha, lugaha, garbaha iyo wixii la mid ah. Laakiin inta badan haaruhu waxaa lagu arkaa wejiga, gaar ahaan dhabanada iyo foolka. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxaa sababa haaruhu? Inta aan u guda galin waxyaabaha sababa haaruhu, marka hore waxaa muhiim ah inaan isla fahanno qaabka uu maqaarkeenu midabka u sameysmo ama qaabka uu u sameysmo haaruhu. Sida caadiga ah, maqaarka jirkeenu wuxuu ka kooban yahay 3 lakab. Lakabka sare oo loo yaqaano epidermis, lakabka dhexe oo loo yaqaano dermis, iyo lakabka hoose oo loo yaqaano subcutaneous ama hypodermis. Lakabka sare oo aan ku sheegnay epidermis waxaa ka hooseeyo unugyo loo yaqaano melanocytes. Unugyadaasi waxay soo saaraan maaddo loo yaqaano melanin oo ah maaddada go'aamiso ama maaddada siiso maqaarkeena midabka. Marka maaddadan loo yaqaano melaninta waxay go'aamisaa qofka inuu noqdo qof cadaan ah iyo qofka inuu noqdo qof madow ah. Markii ku badato maaddada melaninta maqaarka, qofka midabkiisa wuxuu noqonayaa midab madow ah. Sidaas si la mid ah haddii ay ku yaraato maqaarka, qofkaas wuxuu noqonayaa qof cad. Marka maaddadan aan ku sheegnay melaninta kaliya ma go'aamiso midabka maqaarka, sidoo kale waxay go'aamisaa midabka timaha iyo midabka indhaha. Waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah maxaa sababo ama maxaa keena haaruhu. Waxyaabaha haaruhu keena way badan yihiin. Waxaa ugu horeeya number 1, uurka. Hooyada markay uur qaado waxaa isbedel ku yimaanaya hormoonada jirka, gaar ahaan qaybtan hadda sharaxnay ee aan dhahnay maaddada loo yaqaano melaninta ayaa kordhayso. Marka maaddadaas melaninta markay korto, hooyada wejigeeda waxaa kasoo baxaya haaro badan, gaar ahaan dhabanada iyo foolka. Sidoo kale haaruhu markay yimaadaan xilliga uurka waxaa loo yaqaano melasma ama magaca melasma ayaa loo yaqaanaa. Sidoo kale waxyaabaha keena haaruhu waxaa ka mid ah number 2, qoraxda ama cadceedda. Qoraxda sida caadiga ah faa'iido ayay maqaarkeena u leedahay, faa'iido darana way u leedahay. Haddaan ku hormarno faa'iidada ay qoraxda inoo leedahay, waa in ay jirkeena siiso ama maqaarkeena ay siiso nooc ka mid ah fitamiinada, gaar ahaan fitamiinka loo yaqaano vitamin D. Sidoo kale faa'iido darada ay leedahay qoraxdu waa marka ay ku badato maqaarkaaga inay sababayso haaro ama inuu isbedel ku yimaado maqaarka. Sidoo kale qoraxdu waxay sababi kartaa inay fiman ka soo baxaan maqaarkaaga. Marka qoraxdu, gaar ahaan qoraxda ka dambeysa xilliga duhurka ah, waxay kugu sababaysaa haare. Sidoo kale waxyaabaha keeni kara haaruhu waxaa ka mid ah stresska ama walwalka badan iyo sidoo kale dawooyinka qaar, gaar ahaan dawooyinka loo isticmaalo in laga hortago uurka iyo dawooyinka loo isticmaalo in la isku caddeeyo ama midabka maqaarka lagu bedelo. Waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo ah sideen ugu hortagi karaa haaruhu inuu ku sameysmo wejigeyga ama qaybaha kale ee jirkeyga. Qaabka aad ugu hortagi kartid haaruhu, marka hore waa inaad ka fogaataa qoraxda. Markaan ku leeyahay waa inaad ka fogaataa qoraxda, ma ahan inaad gebi ahaanba ka fogaatid qoraxda. Qoraxda waxaad ugu fogaa kartaa inaad isticmaashid kareemiska loo yaqaano sun creams oo ah kareemada loogu talagalay in looga hortago qoraxda. Qoraxda markay ka badato maqaarkaaga waxay dhaawac gaarsiinaysaa unugyada maqaarka. Dhaawacaas wuxuu sababayaa in unugyada maqaarka ay dhintaan, sidoo kale inuu haaro wejigaada uu ku sameysmo. Sidaad shaashada ugu jeedidbo, dawooyinka loo yaqaano sun creamska waxay ku soo baxaan noocyo kala duwan.
muhiim ma aha nooca shirkad ee soo saartay kareemka, balse waxaa muhiim ah inay ka hortagayso cadceedda ama qoraxdaba. marka dawooyinka sun creamska noocyo badan ayay leeyihiin. waa muhiim inaad isticmaashid si aad uga hortagtid haaraha wajiga ku samaysmo. inta badan waxaa la isticmaalaa kareemadan loo yaqaano sun creamska xilliga cadceedda kulushahay ama xilliga samarka oo kale. sidoo kale waxaad ugu fogaan kartaa haaruhu inaad isticmaashid khudaarta cagaaran, gaar ahaan khudaarta ay ku badan yihiin vitamin C iyo vitamin E. labadan vitamin C iyo vitamin E inta badan waxay u wanaagsan yihiin maqaarka. marka waxaa fiican inaad isticmaashid ayagoo supplements ah oo diyaarsan, ama inaad isticmaashid khudaarta ay ku badan tahay vitamin C iyo vitamin E. sababtoo ah khudaarta inta badan waxay ka hortagtaa haaruhu inuu sameysmo, ama guud ahaanba waxay qurxisaa maqaarka jirkeena khudaarta. labadaas qaab oo kala duwan ayaad uga hortagi kartaa inuu haaruhu ku sameysmo wejigaaga. haddaba dawooyin noocee ah ayaa loo isticmaali karaa haaruhu? intaan uguda galin qaabka dabiiciga ah ee loo daweey haaruhu, waxaan ku hayaa hal dawe oo ka mid ah dawooyinka caadiga la isticmaalo ee ka hortaga haaruhu ama lagu daweeyo haaruhu. dawadan waxaa loo yaqaanaa hydroquinone, waxayna kusoo baxdaa noocyo kala duwan. ayadoo waxaa heli kartaa boomate, kaniiniyo iyo noocyo kala duwan. marka dawadan loo yaqaano hydroquinoneta sida shaashada ugu jeedidbo, waxay ka mid tahay dawooyinka la isticmaali karo asigoo dhakhtar kuu qorin. sida caadiga ah dawooyinka waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood. qayb oo prescription lagu bixiyo oo ah inuu dhakhtar kuu soo qoro, dhakhtar aqoon u leh dawooyinka inaad u tagtid, kadibna dawooyinkaas uu kuu soo qoro, kadibna aad isticmaashid. qaybta labaadna waa dawooyin kale oo prescription la'aan aad isticmaali kartid oo horta muhiim ay tahay inaad aqoon u leedahay. dawadan loo yaqaano hydroquinoneka waxay ka mid tahay nooca la isticmaalo asigoo dhakhtar kuu qorin, without prescription ayaad isticmaali kartaa. balse waxaa muhiim ah inaad aqoon u leedahay oona akhri kartid maadooyinka ay ka kooban tahay iyo sidoo kale waxa loo isticmaalo. dawadan loo yaqaano hydroquinoneta qaabkii u shaqaynaysa ayaa ah waxay hoos u dhigaysaa in la soo saaro maado melanin badan. marka waxay inhibition ku samaynaysaa ama ay joojinaysaa in la soo saaro maadada aan soo sheegnay ee loo yaqaano melaninta, oo ah maadada midabka siiso maqaarkeena. sidoo kale haddii jirka ay ku badato haaruhu ay keento. marka dawadan waxay joojinaysaa maadadaas melaninta si uu haaro badan uu maqaarkaaga u samaysan. waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigte oo ah sida dabiiciga ah ee isaga daweey kartid haaruhu. sida dabiiciga ah ee isaga daweey kartid haaruhu waxaa ka mid ah number 1 inaad ka fogaatid stresska ama walwalka. saan hore u soo sharaxnay waxyaabaha keena haaruhu waxaa ka mid ah walwalka badan. marka waxaa muhiim ah inaad ka fogaatid walwalka badan. number 2 haaraha yimaado xilliga uurka oo aan qaybtii hore ku soo sharaxnay oo aan ugu magac darnay melasma. haarahaas uma isticmaalaysid wax dawo ah, sababtoo ah waxaa keenay isbedelo ku yimaada hormoonada jirka. marka hooyada uurka leh markii dhasho hormoonada jirkeeda way hagaagayaan oo sidii caadiga ay ku soo noqonayaan. haarahaasna si normal ah ama si dabiici ah ay u baaba'ayaan. marka haarahaas waxaa muhiim ah inaad isticmaalin wax dawo ah, sababtoo ah haddii hooyada uurka leh ay isticmaasho maadooyin kiimika ay ku jirto, waxay sababi kartaa inay haaruhu wajiga ka baabi'i waayaan, ay meesha ku adkaadaan. sidoo kale qaabka dabiiciga ah ee loo daweey karo haaruhu waxaa ka mid ah inaad isticmaashid aloe vera oo ah geedka dacarta. geedka dacarta waxaad u isticmaali kartaa 2 qaab oo kala duwan. qaabka koowaad waa inaad soo qaadatid geedka dacarta, kadibna maqaarkiisa ama dheecaankiisa aad marsatid wajiga maalintiiba 3 jeer. sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa inaad soo iibsatid asigoo diyaarsan ayaa inta badan loogu iibiyaa meelaha creamska loogu iibiyo. sida shaashada ugu jeedidba aloe vera asigoo diyaarsan oo la soo warshadeeyay ayaa ah noocan. marka noocanba waa isticmaali kartaa inaad maalintii 3 jeer isticmaashid, subaxii, galabkii iyo habeenkiiba. sidoo kale qaabka dabiiciga ah ee loo daweey karo haaruhu waxaa ka mid ah inaad isticmaashid maqaarka muuska. maqaarka muuska waxaa ku jira fitamiino aad u badan oo u wanaagsan jirkeena iyo maqaarkeenaba. qaabkaad u isticmaalaysidna waa inaad soo qaadatid qolofka muuska, kadibna si tartiib ah inaad u isticmaashid ama si tartiib ah inaad u marisid wajiga. sida dabiiciga ah haaruhu loo daweeyo way badan yihiin, balse inta kale idinka ayaan idin dhaafaya. waxaan ka codsanayaa inaad qaybta commentiga ama qaybta hoose
nagula wadaagtid qaab kale oo dabiici ah oo haaruhu loo daweeyo haddii aad garanaysid. anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan, waxaan ka codsanayaa marka hore inaad channelka subscribe noo saarto, muuqaalkana like saarto si uu u gaaro saaxiibo badan uguna faa'iidaystaan aniga iyo adigaba si aan ugu helno fikradana anfaco. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.